بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلشوين ترى الحيابلي ولا لها يقرن جعل أن جعلنا هاي وان سلامي السلام عليكم runtii markasta oon imanno xayaabley waxaan ku faraxnaa sidaan aan ugu soo camiltiin ayaan ku faraxnaaye inila soo qasbin baabuurana in lagu soo ururin ayaan runtii ku faraxsanahay maadsantiin maanta waxaan rabaa annagoo ku sii jirnaa miitingadii ahaa jidbixiyeenka ah ee tilmaamaha iyo tusaalaha aanu ku soo bandhiganay waxaan jeclaaday inaan maanta aan ka hadlo dacdada taagan ee dabka saaran sidaad wada oon ka idhaahdo saddex xidhig sidaad wada ogsoontihiin sabtidii ina soo dhaaftay waxaa guriga ummadda lagu qabtay kongareskii xisbiga RBB ee talada dalka haya hadda siduu doonaba ha ku qabsadee ee hadda haya waxaan rabaa kongareeskaa saddex eray oo inaan ka yidhaahdo intaanan saddexda eray u dhaafin waxaan rabaa mar kasta aynu hadlayno hadalkeenna cid macaayano laakiin waxaynu sheeganaa runta aynu farta ku fiiqanaa sababtoo ah nin aanan runta aqoonin been buu ku nool yahaa layidhi markaa been aynu ku noolaana maaha haddaan u dhaafo saddexda ereyga ugu horeeya waxa weeye inaynu ka jawaabno ayay ahaayeen dadka iskugu yimid goobta ka hadli mayno oo aynu iska dayn dhallinyaradii iyo runtii hooyoyaashii meeshaa la iskugu keenay ee daacadda ahaa ee dabadda la dhigay bacadka hoostiisa laakiin waxaynu ka hadli rag iyo dumarkii gudaha ku jiray qabowga ku jiray labisaadii ugu dambeeyey soo xidhay ayaynu taataabsan waxaynu ka taataabsan 4 sifo ay leeyihiin ayaynu ka sheegi sifada ugu horeysa waxa weeye halkaa meeshaa waxaa la keenay go-aan yaku aynan ku lahayn talo aynan ku lahayn ayaa la hor keenay dee waxa tii hore loo yidhi nin aanan tashan waa loo taliyaaye waxay yihiin dad loo taliyo oo wasifada ugu horeysa ee lagu yaqaani waxa weeye rag iyo dumarka waa matashadayaal sifada labaad go-aankaa markii loo keenay dad garanaya ma aha go-aankan waan diidnay ma garanayo oo maxaynay go-aankaa u diidi waayeen waxaa laga saaray xubinta diidmada ayuu nidaamkan ka saaro sifada labaad ay leeyihiin waxa weeye waa wax madiidayaal saddex waxay go-aankaa marka loo keenay ay diidi waayeen waxaa laga yidhi sidaa hawsha u gala ayaa laga yidhi oo fartaa lagu fiiqay markaa waxay yihiin raggaa iyo dumarkaasi ils ne sont que des simples exécutants rien d'autre waxa weeyaan hawl fuliyeen weeyaan wax kale ma aha hawshaa loo dhiibay unbay inay fuliyaan tahay haba fuliyaani sidii ay loo fulin lahaana waa loo tilmaamo waa sifada afraad ay leeyihiin waxaa laga yidhi hawshiini waxay tahay dans hees mashxarad sacabayn iyo dulmaanka inaad noo tumtiin markaa sifada afraaday ay leeyihiin waxa weeye waa durmaantumayaal weeye markaa 4taa sifo ayay leeyihiin walaalahay 4taa sifo afartaa sifo ayay leeyihiin maxaa u keenay 4taa sifo waxaa u keenay waxa xiisaha leeyihiin waxa weeye waa tagajacayl oo waxay jecel yihiin waa xil jacayl iyo xoolo jacayl ayaa ku asburaysa inay si 4taa sifood ay yeeshaan oo waxay jecel yihiin waxa la yiraahdaa xiisaha waxa la yiraahdo agaasimo jacayl xoog haya jacayl xildhibaan jacayl wasiir jacayl madaxweyne jacayl
وحليني واحد جلتا لوجهل أو قفبا وحبل لغو آمني كريم وقورما كو وملكا جعايل ولواليا هاي ملكا جعايل كما ويليا قبضهم جعايل كدحما ايه وجحيل جعايل كاين سو شيء انه كجيها ملكا لواليا هاي جعايل iyo markuu sakhraansan yahay halka waxa jacaylka jira iyo xiisaha jira cilka buu isku shareero waxa isku xidhmay danayste iyo xilba isku xidhmay labadana in la kala dheereeyo way halkaana maxaa ka baxaya waxa ka baxaya aaminaadii baa ka baxaysa walaalahay haddaba jawaabta ku habboon rag iyo dumarka maxay tahay waxa la yidhi libaax baa gaboobay haddana bukooday markaa godkiisii buu ku dhex taahayay uu iska dhex fadhiyey dacawo meeshii maraysay ayaa taahiisii maqashay markaasay ku soo wacabay tiri boqorow libaaxow maxaad kugu dhacay markaasuu ku yidhi dacawoy miyaanad ogeyn inaan gaboobay dacawoy miyaanad ogeyn inay taagtaydu soo yaraatay miyaanad ogeyn inay tallaabadaydu soo gaabatay bilaa awood darteed baan godka ugu jiraayo gaajaa u dhimanayaaye orod adiga waxaa kula awooda hilib bakayle ii soo qabo markaasay ti ma adigoo boqorkiiyaan bakayle kuu soo qabtaa hilib ka weyn baan kuu keeni ma jira way carato oroday dameer daaqayay u tagtay markaasay ka tiri dameerow warka maanad ogeyn warkee buu yidhi boqorkii wuu gaboobay wuu bukaa wuxuuna rabaa inuu xilka wareejiye wuxuu yidhi xilka waxaan ku wareejinayaa dameerkii iyo iidoon buu yidhi markaa waxaan kuu soo doonay inaan godkii kugu geeyo xilka lagugu wareejiyo taashkii letron lagu xidho way hor orortay markay hor orortay ayuu dameerkii daba jaqafleeyey godkii la tag dameerkii godkii isku sii daa libaaxii markiiba tub ha ku idhaahdo labada dhagood buu haleelay labadii dhagood buu soo goostay dee dameerku awood buu lahaaye markiiba uu ka soo baxay labadii dhagood baa laakiin libaaxii reebtay markaasay dacawadii ku qayliday jiri ma layswaalayaa ma layswanjalayaa waa maxay sidaa ii gashay dacawoy beentaad ii sheegtay waa maxay markaasay ka odhanaysaa doqon yahow labadan dhagood wuxuu kaaga gooyey libaaxu taashkii inuu kuu xidhuu doonayo taashkii bay kaa qabanayeen buu yidhi ee ku noqo dameerkii orod buu isdhao godkii buu ku noqday dee libaaxii wuu haleelo tuud buu siiyo dee wuu iska raamsaday muddo markuu hilibkii cunaayey ay dacawadii daawanaysay ayay dacawadii ka tiri libaaxow aniga waan kuu soo rare oo kuu soo dhaamiye kaalay maxay ahayd wax iga sii hilibka markaasuu yidhi maya intani aniga iguma filna mudday ka yar aamusnayd oo wuxuu ka yidhi waxay dacawadii ka tiri maye madaxa unsii markaasuu ka odhanayaa madaxa waayahe soo galo kaalay madaxa cuno laakiin dhuuxda maskaxda anaa isku dawaynaye oo isku xoogaynaye ha iga taabsan dacawa duluq soo tiri yadiina raac damkasi yadiina libaaxii dameerkii iyo dacawadii markaa waxaan ka leenahay ragga heestii lagu qaadaya maxay ahayd xasuusiya daantu raran dhiishu nooco kan bay ahayd soo maaha dee waxaa ragga iyo dumarka yakaa lagu soo raray dhaanta yaka ayaa lagu soo raray dhiisha markaa waxaan ka leenahay rag iyo dumarow nidaamkan iyo wixii la mid ahaa rag unbaa u soo shaqeeyey rag iyo dumar unbaa u soo shaqeeyo oo la soo raray oo maxay ahayd dhaanta la soo saaray maadarkasiin marka dee ka hadli maynaba walaalahay Ben Ali iyo Mabuto Sese Seko iyo nidaamada kale keena maanta jooga waxaa jira rag iyo dumar inaga horeeyey qaarkood dalka ka cararay ciil daraadeed qaarkood gudooye maqsino iyo guryo isku soo xidhay ciil daraadeed qaarkoodna ay dhinteen oo nidaamkan u soo shaqeeyey oo dhabarka wax kasta ugu soo dhigtay kadibna nidaamkani iyo kadib u cunay
waxaan inaga leenahay rag iyo dumarow soo labisataani soo dulmaanka tumtaane baritooda nidaamkani kuwa ugu horeeyuu cunaya waa ininka. ereyga labaadeen rabaa waxa weeye halkaa waxa ka dhacay waxaana laga yidhi walaalahaygiio waa congress marka la yidhaahdana dee congresska wuxuu iska leeyahay habmaamul buu iska leeyahay macaayiin lagu shaqeeyo ayuu leeyahay. halkaa waxaynu ku arkanay tuways hees iyo dulmaan la tumaayo iyo runtii markaa laga hadlana in yaroo hadal jeedinoo macno badan ku fadhiyin. markaa waxaan sheegi 3 shay oo meesha laga saaray. kow waxaa laga saaray tala wadaag, waan soo sheegnay kuma noqonano, tala wadaag baa meesha laga saaray. laba waxaa laga saaray inay dhacdo dood xor ah oo hufan inay dhacdo, sababtoo ah hadday doodaasi jiri lahayd su'aalaha muhiima ayaa iman lahaa oo waxaa iman lahaa kow xisaabtan baa iman lahaa. laba waxaa iman lahaa waa go-aankan aanu keennay xal muu yahay, badbaado qaran muu yahay, su'aal muhiima weeyaan oo la isweydiiyo. maye waxaa iman lahayd waa raggeena meesha wada fadhina iyo dumarkaa meesha wada fadhiya ee labisaada kii ugu qaalisanaa iyo kii ugu dambeeyey wada sita, ma waxa laga waayey qof wiil iyo dumar ma ha ahaadee 40 jira 50 jira 60 jira oo runtii caqabad uu qabanayn, caqabad caafimaad uu qabanayn, caqabad khibradeed uu qabanayn, caqabad aqooni ay qabanayn, ma laga waayey? lagama waayin. way buuxaan oo kursiga maanta halko oo hortooda la hor keenay rag badan iyo dumar badan oo jecel inay ku fadhiistaan way buuxeen, laakiin hindisahoogii ayaa hortooda lagu qalay oo lagu qowracay. dee lax walba shirilka isdigtaalina ayaa lagu qowracaa baa la yidhi, guriga ummadda ayaa lagu qowracay, hindisahoogii lagu qowracay. waxaa la yidhina dadka kuwa ugu nasiib xuni waxa weeye kuwa hindisahoogii iyo koo weli tallaabadeedii u qaadin oona maxay ahaydey weli waxay qaban lahaayeen si dhaba u qaban, ay maskaxda wixii ay qaban lahaayeenna ay ku wada jirto qabriga gala. waa kuwa ugu nasiib xun baa leeyahay. runtii halkaa waxaa ka buuxay rag iyo dumar nasiib xumayaal ah ayaa runtii ka buuxay. nidaamkaana erey baynu ka odhan, waxaynu ka odhanaynaa waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku maamaahday raad arooriyo dib looma raaco. raad arooriyo dib looma raaco. oo maxaa raad arooriyo dib loogu raacin? dee raadkaa waxaa baabiiya dabaylaha ayaa baabiiya, dhaqdhaqaaqa dadka ayaa baabiiya, wakhtiga ayaa baabiiya. markaa inaku maanta raadka ay dhigtay maa la garan waayi? dee raad dib male inaad dib loo raaco. marka halkudhig han ka dhigano raad dib looma raaco. halkudhig haynoo noqdo raad alla wasahlan. walaalahay noloshu waxay nafaraysaa waa noloshu waa hore u soco laakiin dib laabasho male. markaa ma hore u socod baynu rabnaa mise dib u laabasho? hore u socod baynu rabnaa. ereyga saddexaad aan ku soo xidhi waxa weeye hadalkayga walaalahay, dee meeshaa wixii ka dhacay wuxuu ahaa dee hadallo badan baa maray. kuma daalana hadalladoo wax badan oo micno la-aan malina meelun bay ku wada buliye shubmaayeen oo la iska arkayeen. laakiin hadal waxaa jiray bulsho weynta reer Jabuuti ka fajciyey, yaabiyey oo ama ka ku riday. wuxuu ahaa hadalkaasi hadal la yidhi dalku maanta wuxuu u baahan yahay gacan bir ah ayuu u baahan yahay, oo gacan adag in lagu xukumo ayuu u baahan yahay. waa fajac runtii. waxaanu leenahay maamulka sidaas ah amba gacanta birta ah ee amba adag waa hogaaminta ka ugu liita ee ugu xun ayaanu leenahay. dee nidaamadii ku soo samafalay sidaasoo dhanna halkay ku dambeeyeen runtii waynu ognahay. marka iyaka gacanta birta ay adag ay sheeganayaan
إنكم محاين كنت شنّي أين كورجيننا قعنا حريص لا أين كورجيننا حقوق أي شيء أنا يا محاين كورجيننا حكمت بين كورجيننا وحلي قعنت بلتي صدح عباد بلادي صدح عابي ليلهاي waxay leedahay gacanta biltii waan ku caburin waan ku cadaadin waan ku cabsi gelin bay leedahay baa leeyiri gacanta naxariista lana maxay leedahay gacanta naxariista le waxay leedahay waan ku dhageysan waan ku daryeeli iyo waan may dhiirigelin waan ku dhiirigelin marka walaalahay ma gacan bira mise gacan naxariis leh محاين يسكوك نهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.